ومدين لها جذاها بالشعب وينها سومانا هي حالة ذاك الدوان أو كفرا دجانا ذا بريقة يولي بقلباتك يولي بالشدة أو آذو تعالى سمان مهي وجدا بيجي سحر بر الحوجن وأنا وحيابها وجبضنا اللفلة جينا هريا لان مدح وينها ما أنت لو قلنا واقد دونه إنه كوجو ليستو أما سينو كوجو ليستي shanta sano ee soo socota hogaaminta madaxweynaha Soomaaliland ilaa haatan waxa socota qaban qaabadii ilaa haatan waxa socota diyaar garowgii ilaa haatan waxa socota oo la sugeeyay soo galaan musharaxiinta kala duwan ee saddex xisbi qaran kala hogaaminayay waana goobta laga dhawaaqayo musharaxa hogaamin doona shanta sano ee soo socota Soomaaliland waxa si toos ah uga daawan doontaan Home Cable TV oo hawada soo gali doona saacadaha soo socda iyo ilaa haatan ku jiri doona إلا أنت كدواقيسو أي سعونيسو همبليد سو قد بندونا وحانا ستو سو قد داون دونتان مناسبة داني هون كيبل تي في برتا فيسبوك هون كيبل تي في لي هاي يولي بيوتيوب كا هون كيبل تي في ودمان با ستو سو قد داون دونتان تاسي واحد سيدر إناد دورتو HCTV .tv واللايف ستريم كا ستو سيدنا قد داون دونتو مناسبة دا لغد دواقيو مشرحة كوغوليستي shanta sano ee soo socota hogaanka ama talada qarankani Soomaaliland waxaana wali socota qaban qaabadii iyo waliba diyaar garowgii waxaana ku nasan doontaan markasta oo Home Cable TV soo gudbin doona hadba halkay maraysa xaaladdu sida ay u socoto iyo waliba hadda musharaxa soo gala ayaad la socon doontaan heesaha si aad maqlaysaan iyo dhawaaqyada si aad maqlaysaan waa qaar kamid ah munaasabada loogu diyaar garoobayo in bartan laga dhawaaqo qofka ku guuleystay ama musharaxa ku guuleystay talada qaranka ee Soomaaliland ee shanta sano ee soo socota waxaan Home Cable TV marbidan la socodsiin doona halka ay marayso xaaladdu iyo waliba sida ay wax u socdaan waxaan lahaatan sayidin muuqata kuraasyo ay marayeen oo la sugayaa inay ka soo qayb galaan dadkii lagu soo casuumay waxaan dadka soo gali doonaan marka ay soo fadhiistaan musharaxiinta saddex xisbi qaran ka socday ee halkani ka sugayay bal in laga dhex dhawaaqo cidii ku guuleysay talada dalka ee Soomaaliland waxaana markaas Home Cable TV idin ballan qaadaya inuu la socodsiiyo xaalad kasta waqti kasta ilaa inta laga dhawaaqayo madaxweynaha hogaamin doona qaranka shanta sano ee soo socota saasiyo la socod wanaagsan waxaana marbaad la socodsiin doona halka ay xaaladda ay marayso
الحمد لله والله وكما صدح قلب نما لا بلاابه صدح قلب نما اسك نستو اسك قضيه اسك سو نست صدح قلب نما والله ودح سيكرا ودح سيكرا خلوانا كودح daawadayaal halkani waa telefishinka caalamiga ee Home Cable TV waxaanu si toos ah idinka soo warramaynaa xarunta gudida doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxa maanta halkan lagaga dhawaaqi doonaa abaara 3 galabnimo oo ay ka bilaabmi doonto xafladda sida tooska ah uga bilaabmi doonta in lagu dhawaaqo natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtooyada Soomaaliland ee 13 bishii November ka dhacday guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta gudida doorashooyinka lagaga dhawaaqi doono
galabta marka saacaddu ay tahay abbaara 3 galabnimo waxaa halkan lagaga dhawaaqi doonaa madaxweynihii shanaad ee yeelan doonta Somaliland tan iyo sanadkii 1991 markay Somaliland qaadatay xornimadeeda waxaana madaxweynahaasi uu noqon doonaa 3 xisbi qaran ee kulmiye ucid iyo wadani midkood 3 musharax ee u tartamay kuma ayuu noqon doonaa Faysal Cali Waraabe Musabbixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro balse saad ka warqabtaanba waxaynu sugaynaa waxay tahay natiijada rasmiga ah ee halkan ka soo baxda iyo 3 galabnimo oo xafladdu si toosa ay uga bilaabmi doonto isla goobtan haatan aynu fadhino oo intaasina aad sii daawan doontaan barnaamijyada kale ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka iyo Somaliland iyo taariikhdeeda aad ku sii nasan doontaan laakiin xafladdu waxay noo bilaabmi doontaa ee halka si toos ah uga bilaabmi doontaa 3 galabnimo haddii Allah uu dalo yiraahdo wama santiin shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom waxa ay idin keentay adeega dhigaal waa dhigo oo ku dheefso si aad u furato adeega dhigaal garaac xidig 128 afargees furo dhigaal oo dhibco ku hel isticmaalka ku hadalkaaga garaac lambar 2 si aad u ogaato haraaga dhibcahaaga garaac lambar 3 oo sarifo dhibcahaaga si aad u sarifato lambar 1 ka dhigo daqiiqado lambar 2 oo bedelo fariin qoraaleed lambar 3 ka dhigo adeega internetka lambar 4 oo isticmaal airtime oo u bedela kaarka ku hadalka lambar 5 u bedelo hadiyada qaali oo ka mid yihiin DSL ka internetka laptop mobile iyo waliba hadiyada kale oo qaali oo indhuhu ay ku dogsadaan Hormuud Telecom wixii intaas dheer kale xiriir telefoonada shaashada ku qoran hal